السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشركي أفراد برشادة علمي كمبيوترka wuxuuna ku saabsan yahay maanta Wordpad kombiyuutarada laba siyood ayuu ugu jiraa. maruu icon yahay uu halkan yaalo, mar uu halkan ku jiro hoose ee ask me everything ama ask me anything ku qoran tahay ee Windows 10ka. Windows 7kana halkan buu yaalaa, 8kana halkan oo kale laga search karayaa. ugu horreyn soo furano Wordpad. haddii aad badba ku qortid wuu soo baxayaa. Wordpad iyo Notepad waa soo baxaya, markaa waxaynu doonaynaa wax weeyaan waa Wordpad. haddii aad Wordpad caadi ku qortidna way soo baxaysaa. waa kaas open ayay leenahay, saas ayuu noqonayaa oo inagu soo kacaya. awalan Wordpad waxa weeye markiisa horeba waxa weeyaan waa application software inoo saamaxaya inaynu ku qorano waxyaalo kooban oo aan aad u faahfaahsanayn. waxyaalaha aadka u faahfaahsan ee advancedka waxaa lagu qoraa Wordka, isagana waynu gaari doonaa insha Allah. si aan casharka u sii wado, haddii aad rabtid in inaan casharadan sii wado computerka fadlan share garee oo subscribe leh. haddii si aadan jeclayn ana wax badan isma hawli doono. okay, aanu bilaabano casharkeena. awalan marka hore sida loogu qoro waxa weeyaan halkaas ayaad tegaysaa, isagaasaa kugu soo dhigayaba. markaas ayaad qoraysaa waxaad joogtid, saasoo kalaad qoraysaa. arday ku barta cilmiga computerka si basic ah. sidaa markaad u qortid ead fartasaa u qortid, waxaad rabtaa fartaa inaad qurxisid, waaweynaysiisid, aad si walbaad ka yeeshid. okay, halkaas ayaad tegaysaa. imika ay ku qoran tahay intaas halkaa idin muuqataan haylad gareeyay Calibri oo kale. waa faraha noocyo fara badan ay ku dhigaysaa. halkaas ayaad tegaysaa. waxaas oo far oo nooc badanaba ku jirta, laakiin wuxuu isu bedeli weyday farta kurata. awalan shaqada ugu horeysa ee aad qabanaysaa waxa weeye waa inaad highlight garaysid wixii kuu qoraalka. laba siyood ayaad u highlight garayn kartaa, dhowr siyood ilaa 5 siyood ayaad u highlight garayn kartaa. mar waa inaad halkaa dhexda istaagtid oo double click taabatid, laba jeer ayaad taabanaysaa, saas ayuu noqonayaa. marna waa intaad xagga intaad halkaa kaga soo bilaawid sidaa ugu dhamaysid, ama waa inaad halkaa kaga soo bilowdid oo saa u riixdid mooska, ama waa inaad taabatid Control A oo Control A inaan idin tusoba weeye. saa u taabanaysaa Control A ayaad isku taabanaysaa hal mar, kadibna isaga gami ahaantii wixii meesha yaalaba wuxuu ka dhigayaa waa taas Control A, markaas ayuu soo baxayaa. okay, casharkaas saas ayaad qorto. waxaad rabtaa inaad qurxisid, ma awalan hoto aanu ka horreyn inaan waaweyneyno. waa taas imika fartiina waa 12. laba siyood ayaad u waaweyn kartaa. inaad mar halkaa tagtid oo aad dooratid tiro ahaan. imika waxaan dooraynaa oo kale 28kaas oo kale. marna waa inaan halkan tago oo aan saa u sii dhufto ilaa intaan doonaya ka gaadho. halkanna waa laga yareeyaa farta, saas u yareeranaysa. okay, tanaa timi. tanna waa fara aad u fara badan oo lagu qurxiyo. tag taaba ka dhig. imika qaabkaasuu noqonayaa. markaa fara badan ayaa halkaa ku jirta. halkaas ayaad saa u tegaysaa, waxaa kuu soo baxaya fara badan. marka qoraalada fareed ee aadka u fara badan midkaad doonta ka dooranaysa waa kuwaas. hadaynu ka doorano faraha ugu qurux badan oo kale imika u kaadi waa hoosoco faraha ugu qurux badan oo kale dooran taamood ka dhiga. halkaasoo khiyaaray halkaas si basiga maaha waxyaan si online ah. marka fartani kama baaba'ayso,
ilaa aad highlightka aad ka qaadid wixii oo dhan la dib u celisid. marka waxa weeyaan fartaas horta iyadoo halkaas ayaan sii soconaynaa. mar waa taasoo waxaad ka dhigi kartaa bdaas waxa weeyaan waa bool, keyboard marka ka isticmaali karaysidna waxa weeyaan waa control B ayaa isku taabanaysa. marka waa kaas control B kaas isku taabanaysa way soo baxaysaa. control A iyadna waa saas ka dhigaysaa farta dad isku taabanaysa labada wadasha. okay marka farta qurxinteeda sidaas wey. kalarka haddaad rabtid farta inaad bedeshid halkaas ayaad taabanaysaa. kalarka farta ayaad markaad bedelaysaa, weliba kalarka farta saad baad ka dhigi kartaa, casaan, cagaar, buluug, huruud, waa kaas. marka waxaas oo shaqaa laakiin waa iyadoo kuwa highlight garaysa. qaybtan oo kale waxay qabataa background, waa farta aad qortay xaggeeda dambe sida ay u ekaanayso casaan oo kale ka dhig, saasay u ekaanayso. marka waxaas oo shaqo saas ugu keenaya markaas. marka waxaas oo shaqa laakiin waxay dhacayaan waa marka aad highlight garayso. okay aynu kasii socono qaybtan hoose hoosta ka marsan waxa weeyaan iyaduna waxay qabataa underline ayay hoosta ka maraysaa, markaas qaybtanna dhexda ayaba ka marinaysaaba, gabi ahaantiiba dhexda ayay ka marinaysaa. labada yarar ku xiga waan soo noqonayaa iyagoo kala duwan yihiin waa xisaabaadka. okay markaas fartii sidee baa loo saf garanayaa? waad qortay fartii, casharo badan baad qortay, wax badan ayaad qortay, sidee u saf garanaysa? okay imika cashar badan ayaad qortay, sidee u saf garan lahayd? waa inaad casharkaas oo dhan ayaan qoray, waxaasoo cashara waan qoray ikaadiya, waxaasoo cashara waan qoray oo kale. waxaan rabaa casharka inaan saf garayo oo casharkaas aan ka dhigo inuu noqdo cashar ii saf garaysan oo iigu saf garaysan computerkayga, iigu saf garaysan oo markaan doono soo furan karo ayaan rabaa inaan ka dhigto. marka casharkaas saa u furaha badan leh waxaan rabaa inaan saf garayo. sidee baa loo saf garanaya ayaa timi? waxay isweydiinaysaa loo saf garanayo. okay waa kaas casharkii. 2 siyood ilaa 4 siyood ayaa jirta oo keyboardka iyo mouseka. mar waa inaad isku taabatid control-shaas oo saa u haya aad S-na taabatid, control S-tana aad taabatid, markaas wuu kuu saf garoobaya. marna waa inaad taabatid alta ayay kaga taallaa, waa kaas alta waa halkaa wata ku qoran. marka oo aad kasii dooratid markaa file menuga oo aad number 1 taabatid, number 1 ayuu ku keenayaa. marka waa saf garayn, waa kaas si xagaan kugu dhigaa buu ku leeyahay, xagee kugu saf garaya. okay haddaad kasii socotid waxaad kaloo ka saf garayn kartaa inaad halkaa tagtid oo aad save tirahdid, iyadana waa taas, iyadana halkaasaad ka saf garanaysaa, safetaasaad kusii dhufanaysaa. okay casharku inuu saa usii dheeraada mar rabo waa noo xiisada labaad. aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. fadlan haddii aad rabtid casharku inuu sii socdo subscribe, share and like labadaas samee ilaa 3daas. haddii aad rabtid inaanu sii soconna mas-uul kama ihi. aad ayaan idin salaamayaa. waa Cabdiraxiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.